waa saddex qodob oo aad muhiim u ah qof kastoo dhalinyaro doonaya inuu ganacsi sameeyo. Qodobka koowaad wuxuu noqonayaa in qofka dhalinyartii uu ka fikiro hal ganacsi oo uu leeyahay xirfad ama uu leeyahay xirfadaha asaasiyaadka u ah. Tan oo sahli doonta in ganacsigaasi noqdo ganacsi uu qofka dhalinyarta ku guuleysto. Qodobka labaad wuxuu noqonayaa in uu qorsheeyo ka hor intaanu la imanin fikirkii ganacsi hirgelintiisa. Oo intan waxay sahlaysaa in markuu qorsheeyo ay u suurtogeli karayso qaab kasta oo hawshaas ku wadi karayo ama ku bilaabi karayo kana fikri karayo waxa weeyaan wax kasta oo caqabad ku noqon karayo wax kasta oo ganacsigiisaas kor u qaadaya. Qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa in haddii uu ka maarmi waayo uu la wadaago cid kale uu la wadaago oo ku dhow oo la fikira oo waxa weeyaan ganacsi uu aamini karayo si ay ugu darto wixii kale fikrada. Saddexdan qodob waa saddex qodob haddii uu qofka dhalinyartii raaco ay u sahlanaan karayso in isbeddel ganacsi wanaagsan uu samayn karayo.